بسم الله الرحمن الرحيم saaka waxaan meeshaan uga hadlayaa deegaankii ayaan dhaweyd dagaaladii ay ka dhaceen bishii lixaad labada beelood oo ahaa Baanyaaley iyo Nuur Gurey soonahaas dagaalkii ka dhacay horta beelihii ku dagaalay meeshaas mar walba caqabadooda waa taagan tahay maalin walba dhacdooyin ayaa laga soo sheegayaa waxaan horta leeyahay beelahaas marka hore inay joojiyaan dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka dadka shacabka maalin walba dhibaatada u keena labada dhinacba waxaan ugu baaqayaa horta inay xasilooni iyo walaalnimo iyo nabad ay ku soo dabaalaan arrimahaas haddaan ta kale ku sii gudbo nimanka la yiraahdo Sufo waxaan naloo sheego hayaa maalin walba inay meeshaas yimaadaan ayagoo wada dad ajaanib ah danta hadda ay kala yihiin kullay anigu ma garan karo ajaanibtuna Soomaaliya waayahan waaba ku soo dhaxlaabanaysay dhibaatada waa laga dhex sheegayay mar walba qolo waa soo lug saaraysay marka haddii ay fikir ah ila soo qaateen inay Soomaaliya maanta ay dhibaato Sufo ay ugu horseedo haddana gobolka Hiiraan qaasaan degmada Matabaan inay haddana ugu soo horseedaan waa mid aan loo dul qaadanayn indhaha aan laga qarsanaynin meeshaas waxaan maalintii hore isku nimid dadka shacabka dhibaatadu ka dhacday nabadeyn iyo walaalnimo inaan ku dhex marno qolo walbana gurgeeda aan dejino ayadoo faragelin dheeri aan ka arkay maalintii markaan meeshaas isku nimiday ciidamada Sufo oo dad barkadahoodii iyo guryahoodii ayadoo la joogo ay dhahayaan hala nabadeeyo waa nin gurgiisi la haysto aan barkadiisa la kor taagan yahay hala nabadeeyo wax macquul ma noqon karto waa in qofka marka hore laga qaadaa dhulka uu gacanta ku hayo iyo barkadu gacanta ku hayo laakiin wax badan dibadeed waan ku guuleysanay in ciidankaas la kala raro midna la geeyo qodqod midna la geeyo hees si xasilooni loo helo oo qof walbana markaas ay gurgeedii iyo barkadeedii ay nabad ugu tagto laakiin hadda waxaad moodaa inay haddana dib u dhacyadii maalintii ay wadeen iyo dabandaabyadii ay wadeen ay ka soo dulbaxayso in dad ajnabi la keeno meeshaas oo maartay la yiraahdo dhulkan anigu hadda tilmaantay ka baxsheen ma tilmaami karo laakiin in dad ajnabi la keeno waa xad iyo talaabo dheeri waay xad gudub iyo talaabo dheeri waay marka waxaan leeyahay Sufo arrimahaas dib ha uga degto dadkaas deegaanka ay dhibaato dambe u soo horseedin maamulka Hirshabeelle oo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamuladoodana inaan nabadda ka wada shaqeyno ayaa naga dhaxaysay yeysan wax dhibaato iyo xasaasi aysan ku soo dhax abuurin intaasaan saaka leeyahay anigu assalaamu calaykum waxaan rabaa saakay inaan waxyaabo la yaab ah oo ujeedadooda ilaa hadda aan fasiri laanaay ayaa ku jira baraha bulshada sida gudoomiye xigeenka degmada Matabaan uu sheegay dagaalo qabiil ayaa hore uga dhacay meesha oo degmada Maxaas marka laga tago degmada Beledweyne loo socdo Maxaas isgoyskii la maraayo ceel kuma yaal maxaan ku uraaday magaalo kuma taal waa meel baadiye ah oo dad reer baadiye hadda koor ku dirireen bishii lixaad sanadkan la soo dhaafay ee dagaalkaas u dhacay dagaal qabiil oo ahaa wax laga naxale oo la yaab ah in nimankaas jooga meesha la yiraahdo Gurceel iyo Dhuusamareeb qoryaha la dhex taagan in inta meesha ay yimaadaan dad ajaaniba ay keenaan sawir ay ka qaadaan ay turjun qalada ka bixiyaan wax aad looga naxawaa waxaan rabaa inaan dadka shacabka ee labada gobol degan gobolka Hiiraan iyo gobolka Galgaduud ama labada reer ee deegaan ahaan isu soo xigta in ay si nabada ku wada noolaadaan colaadda iska daayaan iswalaashadaan xabaddanba aysan dhicin intaasaan ugu baaqaynaa waa dadka shacabka nimankaas sid cid shiica anigu ma garanayay magacii islaamku lahaa keligood qaato la yiraahdo sunni waxaa ah dadka muslimka ah oo dhan baa ah marka laga reebo shiicada cid anigu magacaan ayaga u wakiilatay ma garanayo gooray diinta wakiil nooga noqdeenna ma garanayo waxaan rabaa inaan digniin ama fariin adag u diro daandaansiga ka dhacay Baanyaaley
iyo ujeedooyinka guracan oo ay kala yihiin waxay sababi doonaan in mar labaad falal aad u xun ay dhacaan waa ka xishoonnay kamaanaan hadal waa dib baan uga degnay annagoo raadinayna in mar kasta xal lagu soo dabaalo xaaladaha ka jira deegaankaas waxay buhuriyaan mar kasta colaadda qabiilka ayagaa huriya mar kasta colaadda meeshaa ka dhacda ayagaa huriya oo sabab u ah waxaanu ognahay ujeeddooyinka ay ka leeyihiin waxay ka shaqeeyaan maalin walba in labadaa reer ee deriska ay isku dhacaan waxay diidaan in gogol la dhigo nabadeed waa diidaan tusaale waxaan idiin soo qaadayaa oo markhaati ah ugaaska beesha xawaadle ayaa ugaas xasan ugaas khaliif ayaa wuxuu dhigay gogol markii dagaalkaasu dhacay magaalada beledweyne wuxuu erga u diray oo 5 nin oo odayaala u diray warqad uu qorana uu raaciyay sidii dhaqanku ahaa jiray ugaaska beesha cayr ugaaskii markay gaartay ergadii oo odayaashii u tageen dokumentiga ugaaska laga waday fariintiina loo geeyey waxa u suuro geli weyso inuu ajiibo taasoo ay tahay inuu hareeraysan yahay oo uusan xor ahayn oo abbayuus ay ku haystaan waxaan leenahay arrimaha noocaa u yaalla dadka waxgarta ee ka soo jeega gobolkaas dadka waxgarta ee ama ku jira dowladda dhexe federaalka ama ku jira dowlad goboleedka hirshabeelle ama bini aadam kaloo waxgartoo ka soo jeeda deegaankaas waxaan leenahay nimanka la yidhaahdo sufo ama hebel ahlu sunna wax anagu diinta wakiiligu dhiga ma garanayo ama magacaan keligood u saariyey colaadaha iyo dhibaatada meeshaas ka jirta mas-uuliyad ayagaa mas-uulka ah waxaan leenahay ha lala hadlo waxaan leenahay waxaa ha looga digo waxaan caddaynaynaa oon muslin iyo gaal saa ku caddaynaynaa meeshaas wixii ka dhaca wixii horay uga dhacayna ayagaa mas-uuliyaddooda lahaa hadda kabacdi wixii ka dhacana mas-uuliyaddoodana laga bixinaya oo kala duwan inay sheegeen baa la sheegayaa shabaab baan halkan kula dagaalanaa oo godadkan iyo problemkan shabaab baan kula dirirnay inay yidhaahdeen baa la sheegayaa meeshaana dad shabaabi ma joogo waa dadkii 5 sano la dagaalamaya shabaab mar waxaa la sheegayaa ujeeddooyin ka sii guracan oo hadda aanaan ka sheegi karin meediyaa in ay ku sheegeen meesha maxaa koos garaynaya oo sababi kara in dad ajaaniib oo caddaana inta la soo wado meelan magaalo ahayn oon ceel lahayn oo aan bini aadan joogin oo dhowr bilood ka hor colaadu ka dhacdayoo dad badani ku naf waayey in la keeno sawir ka qaadaan maxaa koos garaynaya waa wax laga naxo oo xitaa damiirka soomaalinimada aad ugu xun war hadday culimo yihiinna sida culimadii ha u dhaqmeen hadday jawaasiis yihiinna daadeer guryahooda ha u adeegeen haynaga daayeen shoo baraha waa mahadsantihiin